waxay tusaale ka tahay inay soo noqonayso taariikhdii magaaladii ahayd Dhuusamareen. xafladani waa muhiim waana ku mahadsantihiin qabanqaabadeeda sababtoo ah 26 Juun oo maalintii ugu horeysay ee calan Soomaaliyeed xor ah la saaro lagana taago geyga Soomaaliyeed. 26 Juun maanta saacado kooban ama daqiiqado kooban kadib waxaan noo bilaaban doonaa usbuuca dalka Soomaaliyeed looga yeero usbuucii xorriyadda. waa maalintii ku suntanayd maanta inaan ka xoroobnay gumaysi markii ugu horeysay 59 sano ka hor. waa maalintii Abwaan Cabdullaahi Suldaan Timcadde uu yidhi saacirkii kala gurnayaan siduu yahay egne kaana siib kaana saar. waa maalintii Abwaan Cali Diiriye uu yidhi maanta waa dharaartay dhibaataduna daysee dhulku noo iftiimee maanta waa dharaartan gobonnimada dhalinee calankii dhidibnee calanyow ha dhicin calanyow ha dheelin weligaa dhisnow. waa maalintii uu bilowday macnaha taariikhda calanka Soomaaliyeed uu ku fadhiyo. waa maalintii codatay hashii maandeeq oo ay weliba mataanaysay. gabdhaha iyo wiilasha Soomaaliyeed oo halka fadhiya oo dhalinyarada ah oo qof waliba uu calanka haysto waxaan xasuusinaynaa in calankaas lagu soo bixiyay dhiig badan in loo soo maray dhib badan in lagu keenay in gumaysi dalkan laga soo xoreeyo in dhalinyaro idinka idinla mid ah ay intay gumaysigii dalkooda ka xoreeyeen taagteen calankaas weliba ay u dabaaldegeen annaga nagu soo wareejiyeen. idinkana waxaa laydinka rabaa inaad noqotaan difaacayaasha calankaas. waa tii la yidhi calankeena iftiimay xidigtaa ku astaysan ilaahay ina siiyey isagaa ku abaalay. waa maalintii sida dhabta ahaa loo ciiday. waa kiina dhaxal siiyey xornimo waa kiina dhaxal siiyey dowladnimo waa kiina dhaxal siiyey nabad iyo midnimo waa kiina dhaxal siiyey inaan dunida ka mid nahay. waa sumadda lagu garto dadka Soomaaliyeed ee aan calankaas isaga ah ku milkidno. caawa waxaan ilaahay u baryaynaa inuu jannada ka waraabiyo una mahad celinaynaa qof walba oo dhiiggiisa ku soo bixisay calankaas. caawa waxaan isxasuusinaynaa inaan annaguna soo qadinno nafteenna iyo dhiiggeenna. halkan waxaan rabaa inaan uga mahad celiyo ama aan xasuusanno allah u naxariistay Axmed Gurey, Xaaji Faarax Omar, Sayid Maxamed Cabdulla Xasan, Sheekh Bashiir, Sheekh Xasan Barsame, Xaawo Cismaan, Xaawo Taako. saasay gabdhuhu uga fiican yihiin ragga. محمود حربي
iyo dhammaan 13 dhalinyaro SYL waxaa kaloo jira dad badan oo Soomaaliyeed oo ah heesayaal aan loo heesin oo dhaliyay midnimada Soomaaliyeed iyagana waan u mahad celinaynaa Allah u naxariistee Barre Axmed Nuur Yuusuf وإسقي لها على كان نسوبنا وسماد ويكو مالنتي للسوري سيدانو دونيو سمكو قارنيو سعودي باتهاي وهنا مسترك عنا سلامة الله ارتقنا مركي للساربة وصعبتنا قاربا نو دليي علنك نو كيني غوبنمدا نو ديرانديريي ميرها iyo heesaha inaga waxa mas'uulna loo kaga dhigay inaan ilaalino taariikhdiisana aan ku wareejino kuwa naga dambeeya caawa waa xusuus wadareedkii dadka Soomaaliyeed oo dhan oo ku suntan sanadkii 60 وهذا اللي جت يوجو كنتني سجال سنة وسنة كي لقى من اللي دال دين وده صور بتوعدين سؤال شو حاي تايمر كنتني سجال سنة كذي حاجة بنجوجنا بالشدة الصومالية ده ما أنت نو وحلو قياسا إن بقول كيف تضبط إيدا ذو كير تاي سدنجر وحكلو إيادون اسكو جانكو أن عاوة صدن سنو وأن دولة دهين يكدوات صدن أما سيالي لباتن سنو أو غلالاس يسو كباشي اسكو جرد وتاريخ ذين نقرن كنتن يسيال سنة كدي حقيبا تاقنا هذا وفولي وصوماليين وإنه بالعصد اللحدن كي يكونتن يسيال كسنو كدل بيسي وإنا نزوي دينا محاسور تقلي سنة كمركو هاكون سيال بقولي اللحدن كي إن ويلل يقبل الصوماليين ونقا قونير ونقا حولير ونقا حولير إن يكون ديردان اسكنو حريان قميسي دود عاوة waxa ay tahay baahida loo qabo in xorriyada laga sii shaqeeyo baahida loo qabo in la suurto geliyo in dadka Soomaaliyeed ay ka sii shaqeeyaan midnimadooda inay isku tashadaan oo isku tolnaadaan waxba iskama bedel doodu waxa ay tahay 60kii waxa isu yimid gobolada waqooyi iyo kuwa koonfureed waxaan naga lumay wixii naloo dhiibay macnaheedu waxay tahay shaqadii ay soo qabteen dhalinyaradii dhalisay xorriyadda oo isu keenay gobolada waqooyi iyo gobolada koonfureed caawa 59 sano kadib waa ay taagan tahay waa isbedel weyn oo aanan caawa u sharxi karin allah u naxariistay timcadde aanan u sharxi karin xajaadana fallo وأنا نشرح كريم علي سجله أنا نشرح كريم عبد الله قرشة يا صومالي لحدن كي وسود الدي إن حرية دانا لسه والسؤال بيبقى أوقف البو صوماليين أي داين حنوجسو هل كده نبي وقولي أي تباشر السياسات كم مقيمين غيبتي كوفورنا وحي سنة بدن لدارة عيسي دبي يجليني ده قرن ما دي دبو دلين لحياة من دملا هذه السنة كمركوا هالحدنكي الصومالي قبل وقوي يكوا كفرات هذه جماعة خبصتين دليل حرية
oo ay intay isu yimaadeen ay yidhaahdeen Soomaaliya ay toosoo isku tiirsada taageera hadba kiina taag daran haddii ay waqtigaas yidhaahdeen maxaa caawa annaga nala gudboon ragga iyo dumarka halkan fadhiya su-aashu waxay tahay caawa maxaa inala gudboon marka hore waxaan leenahay walaalaheena waqooyi waxaan ka mahad celinaynaa safarkii ku salaysnaa qarannimada iyo dhiiranaanta ee dhalisay midnimadaas ay ku keeneen calanka waxaan ka garaabaynaa wax walba oo tabasho ah waxaana leenahay waxaan diyaar u nahay inaan soo celinno gacantii aad keenteen mid la mid ah ama ka weyn macnaheedu waxay tahay Soomaali haddii aan nahay waxaan nahay walaalo aan kala maarmayn dadkeenna halkan joogana oo ka mas-uula dowladda iyo dhammaan shacabka reer Koonfureed waa inaan aqbalnaa dadaalkii ay muujiyeen walaalaheena waqooyi waxaan leeyahay marka qofna jirkiisa barkiis kama maarmo dunida maanta aan ku noolnahay oo dagaalku yahay xeeladaysi dadku ay difaac isu yihiin tiradoodana lagu tartamo khayraadka la isku dulmiyo maskaxda la isku gumaysto walaala-aan lama noolaan karo si aan jiilka dambe ee soo socda ugu wareejinno dal nabada dad midnimo leh nolol barwaaqo ah iyo magaca Soomaaliyeed oo haybad iyo karaamo leh waddada ama waddadii wadajirka ma ogiye waddo kale aniga iima muuqato maadaama waddada keliya oo noo muuqata waqooyi iyo koonfurba ay tahay waddada wadajirka waxaan leenahay waa inaan qaadnaa tallaabooyinka ugu dhaadheer haddii aan nahay dadkeenna jooga koonfurta iyagana waxaan leenahay walaal la-aani waa wax la-aan sidaas daraaddeed dadka Soomaaliyeed oo ilaahay khayraad iyo wax walba ku manaystay si ay u ilaashadaan khayraadkooda maadaama dunida iyo khayraadka yaalla iyo dadka dunida jooga ay dadku badan yihiin khayraadkuna yar yahay dalkeennuna uu ku yaallo meeshii walaalaheen ay gumaysiga uga soo xoreeyeen midnimadu waa astaanta jiritaankeena si marka midnimada aan uga shaqayno caawana maadaama aan joogno galmudug calankana la saari doono mar dhow 26 bishii Juun magaalo madaxda galmudug ee Dhuusamareeb waxaan ku rabaa inaan ku soo qatimo jawaabtii su-aashii Sheekh Shaakir oo ahayd inay diyaar u yihiin inay gogol fidiyaan waxaan leeyahay geedkii golihii iyo geygii iyo gurigii nabadeed ee Dhuusamareeb waa in la dhigaa gogol gacaltooyo oo looga shaqeeyaa in doorasho halkan lagu qabto laakiin si ay taasi ku dhacdo waa in la soo buuxiyaa shuruudaha ay mudan tahay oo ah in sida uga dhaqsaha badan halkan looga howlgeliyo dhammaan hay-adaha federaalka ay uga horeeyaan hay-adaha amniga si Soomaaliya oo dhan halkan ay u yimaadaan waa maasantiin reer Dhuusamareeb